xaaladda waddankan South Africa ayaa degan kadib markii dhawaantan ay ka dhaceen waddankan rabshado qaxooti naceeb ah oo lagaga soo horjeedo dadka qaxootiga ku ah waddankan South Africa. dadkan oo ka soo barakacay tuulooyinka ayaa waxa ay haatan dib ugu laabteen meelihii ay dhawaantan ka soo qaxeen iyagoo waliba dib u furay qaar ka mid ah dukaamadii ay ku ganacsanayeen halka qaarka kalena ay wali u sii muuqato waxyaaladii ballaarneed ee ka soo gaartay rabshadahaasi. cali cabdinuur oo ka mid ah dadkii dib ugu laabtay dukaamadooda isla markaana aan kula kulmay xaruntiisa ganacsiga ayaa waxa uu iga warbixiyay sababta keentay in ay dib ugu laabtaan goobahaasi. waxaan ku sii joognaa waddankan xoogaa nolol aan ku haysana hadana noloshii waxa ma taqaanaa waa alla ilaa waa iska ciriir hadan laakiin ma taqaanaa waxa ahay waddankii oo aan loo noqon karin kayna ahay iyo ma taqaanaa dhibaatooyin iska jira hadana ma taqaanaa waa iska soo noqonay oo ma taqaanaa nafteena iyo nolosheena ayaan la jirnayna intii tabarteena markii ay ka qaxeen ay ma taqaanaa meelaha soo joogeen hadana noloshooda waxay ku maareeyaan naftooda waxay ku maareeyaan iyo intii ma taqaanaa waxa ahay ay ku sii dabaraan maadaama hadda hoygooda oo ma taqaanaa qaar ay iska liito qaarna ay ku noqdeen xaafadahoodii iyo meelihii ay ka taqaanaa ka ganacsi barteen ama ma taqaanaa waxa ay ka bartadeen wax walba ay ka noloshooda ku dabaraan ay ka barteen dib ay ugu noqdeen. rabshadahani oo aafeeyay dhaqaalaha kumanaan Soomaali ayaa haatan waxa muuqanaya inay dib u soo laabanayso rajadoodii ahayd inay dalkan dib u sii joogaan isla markaana ganacsiyadoodii hore u sii wataan. xasiloonidan haatan jirta ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dowladda South Africa ay ku dhawaaqday in dadka ajnabiga ah ee siyaabo kala duwan ku jooga gudaha waddanka aysan jirin cid waxyeello u geysan karto cidii isku dayda inay dhibaateyso dadkan aan u dhalan waddanka in sharciga la horkeeni doono. madaxweynaha waddankan Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in waxa ka dhacaya waddankan Koonfur Afrika aysan xiriir la lahayn rabshadihii qaxooti naceebka balse ay tahay rabshado ay wadaan dad dana gaar ah isla markaana dowladda ay ku raad joogto. cabdikariim mursal faarax TV Universal Cape Town.